waxay oranaysaa sheekh waxaan ahay qof su'aashan way soo noqotay waxaan ahay qof xanuunka dhiigkarka iyo macaankaba qaba marka ma soomi karo marka fidyada ma siin karaa wiilka aan dhalay caruurtiisa ma siin karaa bismillah qofku haddii una soomi karaynin oo ama marad uu ku dhaco horta fidyo baa lagu leeyahay fidyadaasi wuxuu siinayaa cidda halka bimacna aayadu sheegtay ee sifada laga helo laakiin aan ahayn isaga cid ay ku waajibtay zamaratay masariiftiisu asalkiisa iyo faraciisa haddii bimacna ay laga waayo bimacna maalan uu faqiir noqdo adiga lagu yeelanaya masariiftiisa kor haddii masariifta lagu yeeshana zaka ma siin kartid weeye waxa weeye aabaha awowga adu ilmaha dhashay ilmuhu sii dhalay masariiftiisa hada lagu leeyahay haddii uu ninkaasi wax kale oo maarta ka dhaxmaraya una jirin martaana faqiir uu noqdo waxa lagu yeelanaya masariiftiisa isaga lagu yeelanaya kor haddii masariiftiisa lagu leeyahay zakatu fidri ma siinaysid weeye waxa kaloon isagana zakada la siinayno lamida qofku haddii uu bimacna xoog leeyahay oo uu muktasib yahay ghaniyun bil maal wa ghaniyun bimacna bil kasb baa la yiraahdaa way maal bayuna ahaani hadduu xoogsan karayo oo dhul uu ka xoogsadana uu helayo zaka la siin maayadana way waxa lamida kii isaguna biilka joogtada qaadanayay cid ka saabaha siiso zawjadaba ka soo qaad haddii bimacna masariif joogtii ay u qoran tahay ama cid kaleba ay u qorto zakada isna la siin maayo waa makfiyun ya kaasina waa ka kaaftoomo wuxuu gumaarta qani ku yahay deeqda la siinayo weeyaan wallahu a'lam jazakallahu khayr wa ahsana Allahu ilayk su'aasha labaad waxay leedahay sheekh haddii uu si sharci darro ah ilmo ku calool galo kadibna la yiraahdo labadii qof la isku meeheriyo ilmaha yar xukunkiisa muxuu noqonayaa bismillah ilmuhu waxa weeyaan de wax dambi ilaahay kamu galnay saw labadan shakhsi ee dhashay baa dambiga gashay isagu wax dambi uu galay ma jiro low waxa la dhowrayaa oo kolku qaan gaaro hadii uu kumaaratay noqdo xadiidkii waa kiilaha saddex kooda ugu shar badan weeye labadii maaratay dhashay waa marka intuu qaan gaaro isagana xumaani ay ka timaado weeye waa sida loo leeyahay inta badan meelaha ku arkayso waladu zinuhu manbacu shuruur weeye waa hadii kolku qaan gaaro ay ficil ka soo fusho kolkaan ba xugun la saaraya weeye laakiin inta uuna qaan gaarin isagu dambi male labadan baa bimacna khaladku ka dhacay dambaabe isaga bimacna wax dambiya looma tiirin karo xagga meherkay noqotay waxa weeyaan xurmo male tagidan uu u tagay maawzinuhu maarta xurmo male say u badan yihiin waxay qabaan way mehersamaysaa bay leeyihiin way qoliya barkoodna waxay leeyihiin naag uur leh meher ma qabanaya iyadoo zina ka uur leh biyaanaan xurmo lahayn bay leeyihiin qoladeen biyo xurmo lahayn madhabka shaaficigu way aqbalayaan buu ama kii loo guriyo ku kala loo guriye kala duuna biyahan xurmo lahayn qiimo male meher maartay uurkani bay leeyihiin way laakiin badankoodu maartay xadiidta badankoodu waxay u badan yihiin inayna ka ansaxaynin meherinu ka ansaxayn wallahu a'lam jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayk su'aasha saddexaad waxay leedahay sheekh lowga nabar baa iga soo gaaray saadarteed waqtiga aan salaada ku jiro ama sujuuda ama tahiyaadka kale lowga dhulka ma dhigi karo dhulka kor baan uga qaadaa marka salaadeed wax dhaawaca ma ku imanaysaa bismillah qofku hadii uu مثلا سجود كري وايو اما ركوعda كري وايو اما صعدك بمعنى وكل هوس كعيو كل كور كعيو كري وايو waxa la isku haysaanba wuxuu ishaaro horta wixiisi noqonaya ma fadhiga hadaba bimacna yaa roon mise taagnida waxaanu nahay ninka haday wax yar ku dhacaan uu iska fadhiisanaya waxa ka fiican waxan qiraa'ada iyadoo taagnida lagu aqriyo oo kabta uu taagan yahay
rukuucdii hadduu bimacnaa uuna karaynin lowga bimacnaa ka rukuuci karaynin nabar inuu halkaa ka ishaaro hadduuna sujuudda bimacnaa socodkan u dhaxaysa uuna karaynin halkaa inuu ka ishaaro waxaa ka qiimo badan kana fadli badan qiraa'ada taagnidu ku aqriyo fadhiga isagoo ku aqriyo wey qof waxaad arkaysaa isaga oo qori hadduu doono isku taagi kara oo ay ku dhib badan tahay uun yaa bimacnaa hoosu socodkiiyo koru socodku loogta intuu aayar qoriga halkaa dhigto fadhigaan ku tukan yidhaa wey war waxaa ka akmilsan oo ka fiican oo ruknigii bimacnaa ishaaradiina lagu wada ogol yahay inaad la timaado qorigaaga intaad ku haysata kilkilooyinka rukuucda iyo sujuudda waa ka ishaar halkaa salaadaada ku dhammaysa wey wallahu aclam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سؤال أفراد وحي لهذا يا شيخ هدي لبدا قف لمانها mid kamida oo kala nasabkiisa caayo ama labadooduba oo kala caayo xukunkooda muxuu noqonayaa bismillah labaduba horta laba dambiilan bay noqonayaan haday iscaayaan oo nasabka caaydu waa xaraam weeye tashaatumku laakiin xagga aqdigii guurka de wax ma yeelayo oo shatmi waxba kuma furmaan shatmi waxba kuma fasaqmaan laakiin labaduba waxa la galeen waxa laga yaabaa xagga maartay aadaabtii labada shakhsi u dhaxaysay iyo maartay isxaq dhawrkii kaasay ku tunteen labadoodiba way kolka wuxuu maartay inta adiib ahaan xagga bimacna laga soo qaado tacsiir iyo waxyaalo noocaas xaakimku mooyee laakiin xagga meherkii iyo xagga guurkii waxba ma yeelayso taasi weeyaan laakiin xagga kale uu dambiga loo dhawrayaa kiiska uu kolba midka kala galay wallahu a'lam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سائلك شناد waxa uu leeyahay sheekh gabadhayda day madax adeeg ama canaad ay la timaado maxaa seen la dhaqmi karaa oo ugu fiican ku celi maxay gabadha naashisada ay madax adeeg iyo canaad la timaado haday madax santaag ama madax adeeg ay la hor timaado seen la dhaqmi karaa bismillah qofku waxa weeyaan sharcigu wuxuu ku waajibinayaa zawjkeeda inay adeecdo oo zawjkeeda wixii aan macsiyo ahaynba inay ku adeecdo laakiin nabigu la ahad bani aadam hadaan amray buuli inuu ahad u sujuudo waxaan amri lahaa buu qofka dumari ninkeeda inay u sujuudo way xuquuq bay isku leeyihiin iyaduna xaq bay ku leedahay isna xaq buu ku leeyahay sida aad u sheegaysa way waxa loo baahan yahay midba midka kale xaqiisa inuu ulaaliyo ama haday naagtu bimacnaa nushuuz ay samayso oo amarkiisi ka baxdo oo wajiga bimacnaa u bedesho ama hadal qalafan ay la timaado naajidnima haday ka muuqato masaariifteedii meesha way ku luntay way lagu malay masaariif oo shuruucda lagu leeyahay ilaa ay ka soo noqoto mara weeyaan waxa gacay horta xuquuqdeedii halkaas ay ku lumaysaa way waxa kale lumayo raaci zakaatu fidrigeedina uu raacaya way ilaan kolka maartay masaariifta ay yeelato shaygan manfaacada maartay nafaqada uu daba socdaa kaasina uu raacaya way waa kaasoo kolka ka bacdi calaamadaha intay maartay imanayaan intayna gaari inuu waaniyo waxyaala ku sameeyo laakiin kol haday nushuusku cadaado xuquuqdii ay lahayd ay zawjka ku lahayd xuquuqdeedii way wada dhacaysaa way ilaa ay ka soo noqoto naasinimadana zawjkeedii wax xuquuq ay ku leedahay ma jiro weeyaan wallahu a'lam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سؤال اللي حد وحي لهذا يا شيخ ninka taariku salaadka ah gowriciisa ma la cuni karaa bismillah anaati orana sheegna waan malaynaya waxa weeye qofka taariku salaadkii de waa mas'ala mukhtalif oo culimada badankoodu waxay qabaan waa caasi uune gaal ma aha oo xadiidkan la al-ahd baynana wa baynahum tarku salaat anaga gaalada waxa noo dhaxeeya salaado laga taga uun ay leeyihiin ninku waa gaal waxay leeyihiin kufrigaasi waa kufru nicma uun qofkii kala duway maartay tawxiidkii qirayo waa gaal cad lama oran kara bay leeyihiin laakiin waa caasi weeyaan ninka caasiga ana kala duu maartay muslim yahay gowriciisu waa xalaal weeyaan
laakiin haddii qolyahan la raacale waa gaal dee xukunka gaalkaa ka waa si raacinayaan wey oo salaadii uu ka tegayba waa marka uu uga tago kas iyada khilaaf kama joogo salaadii uu arkaya uu inkiru yidhaa salaadii uba waajibinba uu dafiro laakiin ka la isku haystaa waa qofka qirsan in salaad waajiba lagu leeyahay laakiin takaasul iyo bimacnaa waasi waan tukan doonaa wada kaasay culimmadu qolana leeyihiin waa gaalo xeradaba uu ka baxay qolana ay leeyihiin maya waa muslim caasiyahuune yaa laga togo dalbo oo ha la weydiiyo kabacdi kolka qola waxay u dilaysaa waa maartay kolkuu yidhi wixii hadduu ka soo noqon waayo salaadii tukan waayo xad baa loo dilayaa bay leeyihin qolana gaalnimaaba loo dili bay leeyihin wey aduu waa masale mukhtalifa laakiin culimmada badankoodu waxay leeyihiin gaalnimo ma leh ee waa caasi un weeye wallahu aclam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك سؤال تطوض وحي له شيخ انا سؤالي ku jira hadii aan maqlo magaca nabiga kaleey salaatu wasalaam suuliga dhaxdiisa nabiga ma ku salin karaa bismillah hawaye marka aad ahwaasha ku sugan tahay suuliga iyo meelaha noocaasa ismi ilaahay iyo ismi mucadama weyn iyo ismi rasuul midna ma soo qaadi kartid weey waa ka xidhan yahay waa meelaha kaliya ee la leeyahay xitaa kolkaad galayso asmaada bimacnaa waa inaad meesha banaanka iska dhigto weeyaan kabacdi aad adiga oon wax ismiye siidanin waa inaad baytimeyga gasho weeyaan day warqad tahay hadday kitaab tahay hadday wax meel kugu qoran yahayba hala galin baa lagu leeyahay hadalka lagu hadlana lama ogolo waa xaraam weeye waa awqaada malagu intaad bimacnaa ku dhex jirto waa ku faaruqaya weeye laakiin mar alla markaad hadal la timaado meeshii isaga ila shaqadiisii weeye uu imanayaa halkaa lacnad iyo karaaya kaaga imanaysa weeyaan kolka baytilmeyga intuu ku jiro hadal looma ogola hadalkaasi nooc doon ba aado ama dhikri aado ama maaratay qeyrka ha noqdee lama ogola inuu halkaa ku hadlo markuu soo baxo mudantiisa ka hadli doonaa weeyaan waxaa jira waxaan eega bimacaani wadanee moobeelada intaasoo kitaab intaasoo bimacnaa xadiid intaasoo bimacnaa asmaa intaasoo bimacnaa maaratay ismi mucaadama ku wada duuban weeye waxa weeye xaaladiisa haddii ay korka aad soo mariso qur-aankii isagoo shaashada kora fadhiya aad la gasho waa xaaraam weeye laakiin isagoo gudaha ku jira haddii aad la gasho qiimo leh waa hawo kaasi dhibaato ma leh laakiin isagoo qur-aankii ama ismiga aclamkaa gurada fadhiyo oo kolka la taabta la arkayo inaad la gashaa waa xaaraan bay noqonaysaa wallahu aclam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك سؤال استاذ waxay leedahay sheekh fadhiga yar ee u dhaxeeya labada khudbadood ee maalinka jimcaha ah istighfaarta la akhriyaa ma sugan tahay astaghfirullah subhanahu bismillah khudbada imaamku markuu akhriyayo waa shay mashruuca labada bimacnaa inuu ku kala gooyo labada khudbadood fadhi yar oon weynayn oo qadar ikhlaas laga aqriyo dhan inta inuu ku kala gooyo waxaan adkaartan aan qaadayno wax mashruuc ah bimacnaa ama xadiis uu ku soo arooray ama se bimacnaa kuwa soo arooray ya aayadaha quraanka maana araganu daafiqiga bimacnaa shaafiiciyadu waxay sheegayaan male laakiin waxay sheegi labada khudbo in lagu yar kala gooyo uun ismiga nabiga kolka la sheegay meel kastaba in lagu saliyo way haboontahay way laakiin asawfurtani waxaan malaynayaa uun dadku waa la maartay shay kolku la qabsado jadii maartay wuxuu noqdaa uun shay bimacnaa caadi ah laakiin ma arag xaqiiqa ahaan meel le korta kolku fadhiisto istighfar hal aqriyo ma aragan wallahu a'lam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك سؤال تبناد waxay leedahay hadii qof Soomaali intuu islaabo uu biyo cabo ama uu cunto cuno ma ka joojin karaa bismillah macna qofku kala duu bimacnaa khalam uu cabayo isilowsho adixil kama saara u sheegid la'aan ilaahay baa waraabiyay ilaahay baa cabiyay laakiin adigu u sheego baraaruji ilna kuma orani weeyaan
qofkan waxa weeyaan maadaama uu maartay nisyaan yuhuq meeshaba ka maqan yahay xukunkii uu ka baxay wax jabinaya soonka jabinaya oo kale maxaa yeelay saddex bimacnaa waa marfuucul qalam sabiga ilaahu bimacnaa ka qaangaadhayo ninka saayigii ilaahu ka baraarugayo yaa ninka majnuunka ilaahu ka miirsanay waaba marfuucul qalam weeye kolka adiga xil laguma odhanin baraaruji laguma farin weeye haddaad aragtana adi xil kaama saaro shareecadu kuma odhanin ninka cabaya ama cunaya soonka u sheeg kolkuu isagu dareemo una joojiye weeye wallahu aclam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سؤاشني وحي لهذا الشيخ سؤاش كويتونات هبينك ليلة القدر جاء تطق وحي لهذان إن عاول ليلة القدر سوحة لو قرنيا أما الضمير باعي أما أي باعي أما حويان نوعاس وكلاعي مركع حال إساسي ليلة القدر كواهي السؤاش يا شيخ كور بسم الله أسوأ إسكا عادهم بانو ملاينا يا أقام إسكا قبصدينون علامتها la sheegay leeyahay qadriga lagu garanayo way bimacna kutubtay ku qorayiin waa kun nabiguna sheegay laakiin xayawaan ciidi xayawaan aamuski iyo waxyaalo kuma jiraan calaamadaha leeyahay qadriga lagu gartaa waxaasi kuma jira weeyaan ee waa wax bimacna ikhtiraacun laga yaabo bimacna hawa nafsigu inuu soo galay ama se aqwaal daciifa inay meel bimacna ka soo guuriyeen لكن علاموينك معتمدك كما جرى حيوان با آموسي حيوان با بمعنى هذلي لكن وحو شيء هودو وقتها إني معتدل تاين قبونا أهين كلنا أين نقولين برسيدة أغلب كاوي ونشوى علامتها وحاكمها بمعنى عدد إني دارتي صوب حيصو شعاعا عندها كل كطور تقبنا يا إني نيلنين على ساكمها لكن لما شيءين يدا بمعنى حيوان كواحد تعلقات ضد مرعيه هدوء عيه تاسي وحبكم جنا على مدى حقيقة والله أعلم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سؤال اللي بتنضح إلى هذا الشيخ وحنا يهويو سومي كرويدي بشي رمضان ساترتيد مسكات فدرجة أيها يقفلن فدية دي مس فدية اللي قربها بسم الله qofku kolku soomi kari waayo ama weynaha la soomi kari waayo ama cudur la soomi kari waaye fidya lagu leeyahay fidyadaas yoomkii la arkaba waxa laga rabaa mudkii waa bimacna waa waxan aan gaadhayn nuskiila waa ka yar yahay way koombo oo kale waxyaalahaas ay ku qiyaasaan mudkaasi kolka dharaar walba 30 maalmood waa lagu leeyahay laakiin zakatu fidrigu iyadu maalinka bimacna aad bixinayso waa xukunka gaar ah laba xukun oo isguda gali ma aha mid waxaad u bixinaysaa yoomkii soonkii aad deysay bay bimacna ka waajibaysaa fidyadu tanna waxa weyn waa zakatu fidriyo zakatu badan baa la yiraahdaa zakatu ru'us baa la yiraahdaa zakatu ramadaan baa la yiraahdaa way magacyo badan tahay waa xukun laba xukun oo kala gedisan weeyaan وانا لبا بمعنى ان اسكودا غري كرينين مid hadaad bixiso kii kale aan kaaga filaanayn mid walba gaar baa looga rabaa way wallahu a'lam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك سؤال saddex tobnaad waa su'aal xogaa yar dheer waxa uu saa'ilkan leeyahay sheekh waxaan ahay waxaan guursaday xaaskayga waqtigii dawladda dhexe Soomaaliya sadarteed meherkii berigaan ku mehersaday waxa uu ahaa 300 oo shilin Soomaaliya hadda ayaan doonayaa inaan meherkeedii siiyo ma lacagtii berigiin baa laga rabaa inaan siiyo mise waxba igu kordhaya bismillah shayga marka uu waqtigu waa isbedelayaa uu qiimo dhaco waxa la raadsanayaa shay waqtigii maartay una qiimo dhicin halkii uu wax ka goynayay مثلا 300 imisa maartay xoolaha ama geela ama looda qiimahoodu inta badan aad waxa laga yaabaa isbedelkoodu iska fudud yahay imisay ka goynaysaa loo oranayaa مثلا midka kale 300 ee maartay Soomaaliga waqtigaasi dollarka imisay ka joogtaa oranaysaa way dharka bimacna maartay anwaacdiisa maxay ka goynaysay tiiba loo noqonayaa way maanta inta uu ka shayga inta badan isbedelkiisu yar yahay yaa qiimaha dib loogu celinayaa way waayo fuluustu kol way samaa way kacaysaa kol way qiimo dhacaysaa kol waxaba laga yaabaaba intuu masuul ka dambeeyay yimaada inay gabigeediiba meesha laga tirtiro eega intaan Itoobiya joognay
ma laba lacayo waa meesha khaanada laga saaray ya oo mid walba bimacnaa calaamadii hore kolka ninka hadii uu yiraahdo tii horan baa la igu leeyahay de amalkeediiba wuu burayba waa kan oo bimacnaa tu cusub baa la sameeyay waxa la raadinayaa qiimada maalinkii inta ay ashiyaadan inta badan aan isbedelayna ay ka goynaysay tii baa la raacaya way tii baa kolka lagu jaan goyn sidii baa kolka uu ku bixinaya wallahu a'lam jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilayk inta su'aal loo leeyahay insha Allah ta'ala kulay bariin baa sidoo badan la hubo inay su'aalina hore insha Allah ta'ala su'aalana la soo dejiyo waqti horana loo keeno insha Allah ta'ala halkaas barnaamijkeena inagu xidhan yahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.